bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqon doona mareykanka oo hanjabaad cusub soo saaray hantidhoorka guud ee qaranka oo ka hadlay boobka hantida guud lagu hayo cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo eedeyn u jeediyay cabdiweli gaas iyo sidoo kale cabdiraxmaan faroole ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa iyo farmaajo oo waqtigii kan guulo waaweyn ka gaaraya rooble iyo xaalada guud ee siyaasadeed ee dalka iyo wararkii ugu dambeeyay banaanbaxyadii baaqday iyo sida looga falciyay midowda musharaxiinta oo eedeymo qaarkood loo jeedinayo ayaan daawadayaal warka janaalkeena runta idinkugu soo gudbin doonaa. Haddaba daawada haddii aad janaalkeena runta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share commentiga noogu dadaala. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya. Mucaaradka ayaa waxa weli ay yihiin kuwa aanan taageersaneyn go-aanka lagu joojinayo waqtiga ka dibadbaxyadii lagu badlansanaa inuu ka dhaco Muqdisho. qaybo kamid ah mucaaradka ayaa weli waxay yihiin kuwa kasoo horjeeda islamarkaana sheeganaya in ay go-aankii horey ay u gaareen odayaasha mudulood aysan ku qanacsaneen islamarkaana tallaabadaasi ay tahay mid saameyn badan waqtiga ka dhalinaysa. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in xasan cali kheyre iyo shariif sheekh axmed ee waqtigii juhda ay ku bixiyeen in gebi ahaanba dibadbaxaasi uu baaqdo. hase ahaatee waxaa warar hoose aan helnay ay sheegayaan in xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame aysan ku qanacsaneen go-aanka kasoo baxay odayaasha mudulood ayaa la eedeyntii ugu xoogan loo jeedinaya waqtiga kan maadaama imaamka mudulood la sheegay inuu go-aanka lagu baajiyay dibadbaxyada isaga uu lahaa. imaamka mudulood ayaa waxa uu tilmaamay in ay mar walba dhibaato u keeni karto shacabka Soomaaliyeed inkastoo warar hoose aan helnay ay sheegayaan imaamka mudulood inuu fila Soomaaliya toos ugu xiran yahay. taasina waxay ka dhigan tahay in wax waliba oo carqalada ah ay noqon karto in ay ka dhalato dibadbaxyadaasi inkastoo guddi ay u xilsaareen odayaasha dhaqanka mudulood dibadbaxyadii ka dhici lahaa magaalada Muqdisho ayaa maanta laga cabsi qabay in dibadbaxyo waaweyn ay ka dhacaan kuwa looga soo horjeeday madaxweynaha ku sugan fila Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. tanina waxay ka dhigan tahay in waqtiga kan xaadirka la dardargelinayo dibadbaxyadaasi inkastoo hadda si weyn ay ugu dadaaleen go-aanna ay ka qaateen odayaasha mudulood sidii gebi ahaanba loo baajin lahaa dibadbaxyada inkastoo warar hoose aan helnay ay sheegayaan in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku dadaalay in gebi ahaanba dibadbaxyo looga soo horjeeda Farmaajo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho. taasi oo carab weyn dhalisay iyadoo horey uu gudoomiyaha gobolka uu sheegay in wax dibadbax ah ayna ka dhici doonin magaalada tani caasimada ah ee Muqdisho islamarkaana waraaqad daba socotay go-aanka Cumar Filish ay soo saartay wasaaradda amniga islamarkaana ay ku fasaxday gebi ahaanba dibadbaxyadii ka dhici lahaa magaalada Muqdisho. dibadbaxyada iyo sidoo kale go-aamada madaxda sare ee dalka ayaa waxaa dalka mararka qaarkood ay u horseedaysaa xaalada adag iyadoo aan loogeyn go-aamada ay qaadanayaan mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda waxa iska bedeli karo iyo xaalada guud ee shacabka Soomaaliyeed ay ku sugnaan karaan. dhanka kale Farmaajo ayaa guuldarooyinka waqtiga kan Rooble uu la kulmayo waxay u noqonaysaa farxado gaar ah. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa waxay si gaar ah uga dadaalayaan inay culays xoogan ay saaraan hogaanka golaha wasiirada waxaana arinka ugu weyn ee waqtiga kan ay jira ay tahay kadib khilaaf xoogan oo markan ka dhex bilowday guddiga doorashooyinka iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu taageero kala duwan ka helayo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. khilaafkan Rooble iyo guddiga doorashooyinka ka dhex bilowday ayaa waxay tahay mid fila Soomaaliya ay aad ugu farxaysa maadaama ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu qorsheynayay in wax waliba oo talaabooyin uu ku aadan dhanka doorashooyinka isaga ay kala tashtaan guddiga doorashooyinka. hase ahaatee culeysyada waqtiga kan soo noqonaya ee ku aadan guddiga doorashooyinka ayaa noqon karta in dib u dhac weyn ay ku imaado doorashada Soomaaliya. guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay qabashada 5 kursi oo kamid ah golaha shacabka. guddiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegeen inay waqtiga kan xaadirka ah dardargelinayaan arrimaha doorashooyinka waxaana tani u muuqanaysaa in ay weli ay ku dadaalayaan guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed sidii ay taageero buuxda ugu sameyn lahaayeen madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la sheegay in waqtiga kan xaadirka ah ay si laba jibaari doonaan dardargelinta arrimaha doorashooyinka waana guddiga ugu horeeyay ee ku dhawaaqa jadwalka doorashooyinka 5 kamid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadooda ay tahay
koonfur galbeed Soomaaliya. Inkastoo madaxda maamul goboleedyada weli isqaqabsi xoogan oo dhankooda uu ka jiro, haddana waxaa jira caqabado aad u adag oo ku aadan xaaladaha siyaasadeed ee dalka waqtiga ka jira. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa hore waxa uu sheegay in maamulkiisa uu dardargelinayo arrimaha doorashooyinka, inkastoo aan la ogeyn maamulada kale iyo sidoo kale tallaabooyinka ay qaadi doonaan. Go-aankani ee guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ee soo saareen ayaa waxa uu muuqanayaa mid si gooni ah ay ku doonayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ee doorashada golaha shacabka ee taala kuraasta koonfur galbeed ee sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga soo gabagabeeyaan. Maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay maamulada hadda doonaya in ay dedejiyaan doorashada, inkastoo lagu eedeynayo Laftagareen inuu taageero buuxa u yahay Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Tanina waxay u muuqanaysaa in uu hadda uu doonayo hogaamiyaha koonfur galbeed in wax waliba oo ku aadan doorashada Soomaaliya uu dedejiyo. Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe, Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa hadda waxay yihiin kuwa aan u muuqan diyaar garowga doorashooyinka, inkastoo hogaamiyaasha Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle ay Muqdisho ay ku sugan yihiin, halka Laftagareen uu ku sugan yahay wadanka Turkiga. Wararkii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in hadda madaxda maamul goboleedyada qaar culays aad u xoogan ay haystaan, haba ugu daraatay culayska hadda ee BSF ka haysta Saciid Cabdulaahi Dani oo ku aadan xaaladda doorashada sidii waqtiga kan uu u wajihi karo madaxweynaha maamulkaasi. Sidoo kale khilaaf xoogan ayaa kala dhaxeeya waqtiga kan ismada Puntland, iyadoo taasi u muuqanaysa in culays xoogan waqtiga kan doorashada Soomaaliya ay ka jiri karto. Dhanka kale, madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa culays dhanka odayaasha dhaqanka Hiiraan ka haystay, iyadoo la tanina ay ka dhigan tahay in culeysyada waqtiga kan madaxda maamul goboleedyada haysta ay jawaab u tahay in uu waqti iyo juhdi uu ku bixinayso fila Soomaaliya in doorashada Soomaaliya dib ay u dhacdo xilli cadaadis xoogan ay Mareykanka ay kala kulmayaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddiga doorashooyinka qeybaysa kala duwan. Dhanka kalena, daawadayaal, hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa waxa uu mar kale uu soo bandhigay arrimo ku aadan lunsashada ka dhex socota dowladda federaalka Soomaaliya hantida guud. Xafiiska hanti dhowraha guud ee dowladda Soomaaliya ayaa waraaqad uu soo saaray waxa uu ku hakiyay bixinta ruqsadaha kalluumeysiga maraakiibta shisheeye iyo sidoo kale qandaraaska hubinta tayada badeecadaha oo loo marinayo hanaan sharci ah. Sidoo kale, hanti dhowraha ayaa mas'uuliyiinta hay-adaha dowladda qoraalkan ugu dalbaday in ay ka waantoobaan falalka lagu baalmarayo shuruucda dalka, isagoona u goodiyay cidda ku sifowda in uu sharciga la tigsan doono. War-saxaafadeedkani ka soo baxa xafiiska hanti dhowraha guud ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah hay-adaha dowladda Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay ee wadeen tallaabooyin aan waafaqsaneyn sharciga. Tanina waxay noqonaysaa in ay culays xoogan waqtiga kan uu ka dhex bilowday dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama qaar ka mid ah wasiirada ay wadaan boob hantiyadeed iyadoo lagu guda jiro xilliga kala guurka waqtigana dalka uu galayo doorasho. Xafiiska hanti dhowraha oo jawaab ku habboon ka bixiyay, sidoo kalena uu ku wargeliyay hay-adaha ay quseeyay in la hakiyo bixinta ruqsadda kalluumeysiga iyo maraakiibta shisheeye iyo sidoo kale qandaraas hubinta tayada badeecadaha ee loo marayo hanaanka sharciga waafaqsan. Waxaa tani u muuqanaysaa go-aankan uu soo saaray hanti dhowrka guud ee qaranka mid uu kaga soo horjeedo boobka waqti waliba lagu sameynayo hantida ummadda Soomaaliyeed. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa eedeymo kala duwan loo jeedinayay qaar ka mid ah golaha wasiirada uu hogaamiyo Maxamed Xuseen Rooble, iyagoona lagu eedeynayay in ay wadaan boob ku aadan hantida guud ee danta shacabka Soomaaliyeed. Waxaa tani ay ka dhigan tahay inay jiraan caqabado adag waqtiga kan xaadirka ah dalka, iyadoo qof walba ay la socoto xaaladaha siyaasadeed ee waqtiga kan dalka uu marayo. Guud ahaan, daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibada aan jeclahay waa nageynta. Haddaba daawada, haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka wararkeena, like, share, comment-ga nagu dadaala. Waadna mahadsantihiin. Nabadgelyo.